anigu waxaan ka mid ahay dhalinyarada soo koray dee family problem ee waalidkoogu iyagoo kala tegay soo aan qaaday soo caqliyeystay aniga hooyadii iyo aabahay waxay kala tegeen anigoo 5 sano jira haddaan qisadeeda ka waramo kadib 6 baan ahayn caruura hooyo aaba markay kala tegayeen hooyadii iyo aabahay waxay ku heshiiyeen inaan 6dii kala qaataan hooyana 3 qaadato aabana 3 qaato si loo kala qaybsado caruurta kadib laba wiil la 4 baan habla ku nahay marka hore hooya 6 caruur wada haysay oo aaba kala timiday aaba Itoobiya jiray hooyana Soomaaliland Hargeysa joogtay kadib hooyo 6dii markay haysay marka hore iyada waxay rabtay inay 6 caruur wada hayso oo iyadu koriso laakiin adigu problem jiray dartooda aaba wuxuu diiday inuu biilkii bixiyo reerka hooyana taladii waxay ka dhigtay in la kala qaybiyo oo 3na aaba qaato 3na hooyo qaadato kadib hooyadii maadaama iyada haysay caruurta 6daba wada haysay waxay la hadhay labadii hablood ee waaweynaa iyo inantii ugu yarayd aniga oo inana iyo labadii wiil waxaa la nagu daray 3 aaba qaadanay marka dhibaatada ugu badan aniga igu soo dhacday aabahay baa la geeyay waqtigan yaraa aabahay baa la koray maasha Allah si fiican buu soo kariyay waxba i baray laakiin dhibaatada la soo kulmay waxay tahay inan baan hay hooyo la'aan ma noolaa karo guriga aabahay wuxuu ahaa qof shaqeeyo oo subaxdiina maqan habeenkii 9 habeenimo soo hoyda marka waxaan noqotay inaan gurigii anigu keligay joogo oo waxaas aabahay guursaday iyo anigi labadii wiil maadaama wiil lahaayeen labadii wiil aaba ka haysan jiray wiilka ugu weyn isagu guriga ma iman jirin inta badan wuxuu joogay suuqa iyo meheradaha aabo wiilkii yaraa aniga guriga ku soo hadnay wiilkii yaraana intiisa badan isaga laftirkiisu wiil buu haay aabahay wala socon jiray aabahay wala joog jiray kadib aniga soo hadhay anigii meeshii waxaan ku noqday qof tee ku dayacan ilmo yar oo hooyo haysan oo walibana gabadha dareemi karta waxbarasho la'aan bay u dhacday inuu aabahay madrasad quraan biigay iskuul lagu madarin waxbarasho kale lagu madarin teemaan arag qof attention siiyo iraadiya waxay noqotay maalintii waqtigu intuu ka tiri laga yahay dhan ina waqtiyada roobo ku daayaan ina tooxida ku soo ciyaaro anigoo gabadha habeenkii baan soo hoyanaya tobanka habeenimada doonto waqtigiyada habeen madow ah sida meelaha soo taaganahay dibadaha ugu soo ciyaaray anigu waliba ilmo yar oo naqan markaas aad u yar 10 sano aan gaarin baan habeenkii oo dhan meelaha soo wareegaya guriga soo noqonaya waan imanaya qof ismagay weydiiyo waxaan ku maqnaa tee qof ima hagaajiyo timahayga qof ma hagaajiyo jirkayga qof ma hagaajiyo aabay 9 habeenimo imanaya uu seexanaya diwaanin dareemi kartaan anigii baa guriga ku dhex dhibaatooday alxaasin waan weynaaday waan koray waxaan dareemay inay hooyadii joogin oo hooyadii ay magaalada ka maqan tahay aabay waanu sheegay arankii waxaan ku dhaabo waxaan rabaa inaan hooyadii u tago waan hooyadii la joogo maadaama aan inan hay aabahay markii hore uu iga diiday laakiin markii dambe way ogolaaday awowgii hooyadii dhalay baa la soo raaciyay oo Itoobiya ka soo kaxeeyay Hargeysa keenay hooyadii baan u miday hooyadii markaan u miday hooyadii iyo aabahay heshiiskoodu wuxuu ahaa inuu aabahay 3 haysto hooyadiina 3 haysto laakiin anu waxba ka mooyin oo ilmo yar baan markii kala tagay hooyo markaan u miday habeenkii markaan guriga soo hoyday subaxnimadii gaariga la saaray Itoobiya guriga aabay dib loogu celiyay mar labaad haddana sideedii baa dhacday waxaan ir hooyadii baan rabaa aabay dib gaariga soo saaray Hargeysa dib soo noqday hooyadii baan u miday marka sababtu ku celinayna waa heshiiskan dhex yaala sababtu hooyadii celinaysa waxay ahayd hooyadii aabahay maadaama aabahay diiday inuu biilka bixiyo hooyadii talada waxa ku goysay inuu 3 haysto iyadina 3 haysto aan la isku imanin kadib aabaan u tagay waxaan ku dhaabo aan hooyo rabaa inaan la joogo ma raba inaan gurigaaga joogo iyo xagan way soo direen Hargeysa miday Hargeysa hooyadii markaan u miday hooyadii sideedii bay samaysay oo waxay tiri anigu kuma haynayo maadaama aabaa ku heshiinay inuu 3 haysto anu 3 waan haysanaya asuu 3 haysto adigu subaxnimadii baa mar labaad la diray oo gaariga la saaray Itoobiya ku noqday aabay baan u tagay aabay waan diiday inaan la joogo waxaan idhi ma joogay xagan anigu waxaan rabaa hooyadii inaan hooyadii la geeyo aabahay uu diiday wixii hooyada ku soo celisay 2 jeer oo hore mar dambe lagu ma diray iska joog
awowgay hooyaday dhalay baan u sheegan ku dhaab awow hooyaa rabaa ina liikeeyo awowna u itiiday waxaa la sheegay in hooyaday xaafaday deganayd ka guurtay oo meel kala degtay kadib waxaan sameeyey inaan gurigii aabbahay Ethiopian oo jooga kasoo baxsado oon anigoo welibana aad u yar oon kala garanaynin dhulka wadanka magaalada diina xaggana Somaliland tahay xaggaasina Ethiopia tahay oon kala garanayn gaadhigan soo raacay xaajiyad baan dhagada kasoo raacay Hargeysana mitay hooyadii baan mitay guriga hooyadii markaa ma garanayo hooyadii waxaa jirta macallimad bay ahayd iskuul bay dhigi jirtay kadib inaan gaadhiga markaan kasoo dego inaan Hargeysa imaado inaan gaadhi iskuulkii magaciisan xasuustaa mogtahay garanaysaa kadib iskuulkii baan imiday iskuulka hooyadii baa macallimad ka ahayd markaa waqtigaan iskuulka imanayo hooyadii way maqnayd inuu walaashaygu weyn bay iskuulka joogtay iskuulka hortiisaan imiday anigoo ilmo yara oon magaalada kala garanaynin cidna garanaynin iskuulka agtiisaan fadhiistay ardaydii baan u sheegan kudhi waxaan rabaa gabadha magaca la yidhahda in iskuulka layga yeedho waa laygu yeedhay gabadh walaashay oo weyn bay iskuulka joogtay markaa gabadhii walaashay ahayd markay aragtay way iska ka qarisay maadaama ay dee iyadu way weyneyd way og tahay xaalka sida jira waan fadhiyey waxaa laygu yiri iskuulka wax laga soo baxayaa 5 galabnimo markaan Hargeysa soo galin waa 1 duurnimo 6 subaxnimo aan ka soo baxay Ethiopia ilaa 5 galabnimo waxaan fadhiyey iskuulka hortiisa weliba anoo ilmo yar oo aad u yar xataa intaan jiro ma xasuusto waan sugay gabadhii walaashay ahayd markay ka soo baxday way iska ka qarisay ardaydii way ku dhaxdhuumatay way iska ka qarisay anoo meesha sidii 5 galabnimo fadhiyo oo sugaya sileynatiba ku soo baxaysa inantii markay soo baxday ay iska ka qarisay ardaydii bay sheekay ugu dhiinantii aad sugaysay way tagtay xagay marasaayo wadadaasi bas ka raacisay waan ka daba cararay inantii baan u tagay waxaan ku walaal waanige waxaan rabaa gurigii maadaama guriga ka guurteen garan waayay waan soo baxsaday aabinay mooyana gurigiisa gabadhii walaashada way soo kaxaysay gurigii bay keentay hooyaday oo markaas la guursaday oo ilmo yar oo kala haysata saddexdii hablood walaalaha inay la joogaan hooyaan u imiday waxaan ku hooyo aabbo waan ka soo baxsaday mana rabay inaan aabbo la joogay waxaan rabay inaan adigu la joogo hooyo waxay igu tiri aniga aabbaha go'aan baan gaarnay inaan isaguna saddexdiisa haysto aniguna saddexdeeda haysto marka aabbaha ku noqo aabbaha la joog aniga hay imanin anuu nin kale aan guursaday nolol kale aan samaystay aabbahaana ma ogola inuu idin biiliyo maadaama uu saddexdan kaleba biilin waayey adigo afar kuma hayn karo adigu waxa dhacday inaan ku dhaho hooy aabbaha la garaaco oo aabbaha loo sheegay inaan kula joogayaan aabbaha la wacay waxaa lagu yiri inantan yara soo baxsanaysa dee waa ilmo yar hayla joogtay biirka bixi maadaama aanu saddexdii kala hayo aabba wuu diiday wuxuu dhaanu biir ma bixinayo haddaad saddexda caruura aad haysatana ku darisada afar kaga dhigisina waa alxamdulilah haddaanad ku daraynood haynayna iska soo celi hooyaday sidii bay samaysay subaxnimadiiba dib gaariga lay saaray Ethiopia lagu celiyay sideedii baa sameeyay waana sugay aabbahay iyo reerkii iyo dadkii u dhanbeel culuubay waan diiday waxaan dhaan hooyadii baan soo arkay walaaladii baan soo arkay ma joogay magaalada waxaan rabaa inaan hooyadii la joogo oo walaaladii la joogo waxaan isku dayay inaan aabbahay ka dhaadhiciyo aabbahay wuu diiday taas wuxuu dhaan biil ma bixinayo hooyadiina way diiday inay hayso mar afaraad baan isku dayay waa soo baxsaday waana mid Hargeysa mid hooyadii baan u sheegay wax ku hooyo aabbo waan ka soo baxsaday mana rabin inaan aabbo la joogo waxaan rabaa inaan habla la joogo haddii kale xataa laygu celinay aabbo inaan halay raaciyo dee maadaama inaan keligay ahay meesha ku dhibaatooday cidi tima iga hagaajinayn cidi i daryeelaynin aabbaayuuna gurigii joogay inuu yahay dee qof subaxdii baxaya oo habeenkii 9 habeenimo soo yeynay adigu hooyaday mar labaad markii dambe waxa isku dayday in aabbahay ku qanciso inuu biilka bixiyo si aan afarteeda hablood meesha uga joogno aabbahay waa la hadlay waa loo sheegay waxa lagu yiri inanta yara soo baxsanaysa
ha joogtay waxbarasho la-aan baa haysee biilka bixi. aabbay wuu diiday. wuxuu dhaa ma hablaha wada haysanaysaa ama wada isu celinaysaa inantaas, adna saddexdaada hayso ana saddexdeedaan haysanayaa. waxaa dhacday inaan aamus waayo, oon ooyo, oon qayliyo, oon diido inaa Itoobiya laygu celiyo, inaa gurigii aabbahay dib laygu celiyo. dhibaato fara badan inaan gurigii ka dhex qayliyo maadaama hooyaday reer kale leeday, nin kala qabay. hooyaday xal kale markay weyday, labadii hablood eega waaweynaa baa lay raaciyey oo lagu uri kaxeeya balidigu oo kasoo dhaadhiciya aabaheed inama aabaheed la joogto ama in aabaheed lasoo diro si waxbarashada iyo nolosha lagu dabaro. aniga iyo labada hablood eega waaweynaa baa Itoobiya ku noqonay. gurigii aabbahay baa tegnay. aabbahay baa u sheegnay, waxaan ku nidhi aabbo waxaan rabnay inaan hooyadii la joogo, labadii hablood kale waaweynaa baa la socdaa, dee aabbo biilna sii. aabbahay wuu diiday. kadib hooyadii waxay xal ku keentay in aniga ay diido inaan guriga joogo. markaa aabbahay iyo hooyadii way tanaasul weyday oo way diiday inay ii tanaasusho ay tiraahdo dee ilmaha yara soo baxsanaya ee kolba Itoobiya ka imanaya laba wadan soo kala gudbaya iska daa. aabbahayna wuxuu diiday inuu tanaasulo, uu yiraahdo bal ilmaha yartay soo baxsanayso hooyadeedu daa. labadu tanaasul waayeen. waxaa dhacday inaan Itoobiya muddo yar markaan joogo haddana soo baxsado oon hooyadii u imaado. waan ooyey, waan qayliyey, wax kasta waan sameeyey. hooyo waan u sheegay, dee heer waxaan gaadhay xataa haan waalan gaadhay. hooyadii rabitaankaan rabay hooyadii darteeda. hooyadii haddana wax isku dayday inay aabbay dib ku qanciso inuu biilka bixiyo. aabbay waa lala hadlay, waxaa lagu yidhi inanta yar ha joogto bale biilka bixi. aabbay wuu diiday. hooyadii taladeeda waxay ku soo goysay mar hadduu aabbaha diiday inuu biilka bixiyo inaan aniga guriga kasoo gudin. ana waan diiday inaan aabbahay ku noqdo oo waxaan idhi waxaan rabaa inaan hooyada la joogo. dhibaatada ugu daran markaasay ku dhacday. aabbahay wuu diiday, hooyadiina way diiday inaan guriga joogo. waxay noqotay inaan igu dhan baa lagu dirayaa oo Itoobiya lagu dirayaa ama Hargeysa gal. ilma yar baan saaid baan u yarahay markaas. hooyadii anoo la jooga baa waxaan u sheegay, waxaan ku uri hooyo bal markii ugu dambeysay aabbahay waa anigii maqashay inuu diido dee markaas ugu dambeysa. sidii baa dhacdayoo aabbahay baa la wacay, waa loo sheegay, waxa lagu dhihi inantii yareyd inay soo noqoto way diiday. biilka ma siinaysaa guriga ha joogtee bise biilka siin maysid aniguna magaaladan kusii daaya. aabbahay wuxuu yidhi anu biil ma siinay. hooyadiina waxay tiri hadduuna aabbaha biilka bixinayn anagu ma haynayo. dhibaatada ugu darnata markaasay dhacday. gurigaan joogaa, hooyadii Hargeysaan joogaa, meesha ma kala garanayo, magaalada ma kala garanayo. ilma yar baan ahay, dee faamiligayga kale magaalada degan xataa ma garanayo. Hargeysa iyo Itoobiyana dee ma kala garanayo meeshan inay Somaliland tahay, meeshaan ka imid inay Itoobiya tahay. keliyaata waxaan garanaya inaan Hargeysa joogo, Hargeysa hooyadii joogto. hooyadii waan beriyey, waan ooyey, waan qayliyey, waan u sheegay wax ku hooyo kuma noqonayo Itoobiya. Hargeysana qof kale kama garanayo oo iyadan u imid soo maxay faamiliga magaalada degan yahay laakiin ma garanayo. waan isku dayay inaan ku qanciyo hooyo, laakiin aabbahay iyo hooyadii xumaantii dhexdooda taallay ay hooyadii diiday inaan guriga joogo. aabbahayna hooyadii dhibaatadii dhexdiisa taallay buu diiday inuu biilku bixiyo. aabbahay wuu tanaasul waayey oo wuxuu garan waayey inuu yidhaahdo dee ilmaha yar iska daa hooyada la joogta. hooyadiina waxay garan weyday inay tiraahdo inanta yare soo baxsanaysa aabeediisa iska daa iskala kaa joogtay. waxaa dhacday labadoodiba markay diideen hooyo habeen shalay oo kale nimid Hargeysa 10 habeenimo weeyaan. way timid gurigaan oo fadhiya. waxay ku tiri hooyo mad ku noqon aabbaha
أقول ما يكون نقني حاجتي هذا ما حد سمينا سميست وهقول وحربينا هذه كل شيء حتى وحبر شيء قدرين ها حتى أقول وحبي أنا كعنين حتى بدي ما تضط هاي ينبي لبحيه وأقول لك أنت دي يا وحبر شيء لو بعيه وحبر شيء أنا لسه كده يا أنت أنا لسه كده كليه تنسك تشوف كوريا وديتي هوي waxay tiri dhibaatadu badan aabbaha keenay markii horena aabbaha diiday inaan wada haysto iminkana isagaa diiday inuu biilka bixiyo marka waxaad samayn kartaa inaad Itoobiya ku noqotid guriga aabbaha iyo inaad magaalada gasho marka waan yarahay waan diiday inaan ku noqdo guriga aabbaha magaalada gasho markaa waxaan ku hooyo ma rabo inaan guriga ku noqdo gurigii aabbahay hooyadiina markaa caruur kale dhowr caruur ay dhashay ninkii dambe 3 caruur meelahaas buu dhashay waxaa dhacday habeen waa markaan kuu sheegay shalay oo kale Itoobiya ka imid habeennimadii hooyadii ilamay hadal kalamnimadu waa tan ii sheegtay daaranka ilamay hadal waxay samaysoo kale ma jirin oon ahayn deen iska gidayso diini dee guriga saarto hooyadii iyo ina weyno walaashay curadeeda way wada hadleen heshiiska wuxuu noqday inaa caawa tumak habeenimo weeyaan inta guriga laga saaro albaab laga saaro oo la igu dhaho magaalada Galadaba sidii baa dhacday hooyadii iyo gabadhii weynayda walaashay ahayd way sheekaysteen waxayna ku heshiiyeen inay Itoobiya maadaama Itoobiya diiday guriga aabbahay inaan ku noqdo inaa guriga lagu hor iska baxay iska tag magaalada iska galo sidii baa dhacday waan iska waa inan walaashay ah oo iyada taweyn toos wayar ah bay timday oo markaa guriga laga soo saaray may gurigan ku jira iyo waxay ku heshiiyeen inay guriga ka saaraan laakiin anu ma ogiyo guriga qol kamid aan fadhiyaan inantii walaashay bay timday waxay ku tiri walaalo waadiga diiday inay Itoobiya lagu celiyo aabana waa ka diiday inuu biilka bixiyo wax kaloo la samayn karaana ma jirto oon ahayn inaad dee maxay dama guriga ka tagto ama inaa beritoole subaxda gaariga lagu saaro waxaan ku uri beritoole subaxda gaariga lama saaro kama tegayo Itoobiya kuma aqoonayo xaggan joogaya hooyadii gabadhu noqotay way soo wada hadleen habeennimadii abaarato markay habeenimo markay tahay hooyadii inantii walaashay bay soo dirtay waxay ku tiri dharka ay sidato intaad u qaateen baa ka soo xidhay sidii baa dhacday inantii walaashay hadda tii weyneyd maaha tii yareed waan isku fiicannahay xaggina joogtaa inantii baa timday waxay ku tiri walaalo xel kale waa la waayay waan ahayn in amba Itoobiya loogu celiyo amiinad guriga ka tagto haye baan ku uri maxaa la sameynayaa markaa waxay ku tiri waa 10 habeenimo adeeraa guriga imanaya adeer waa ninka way qaba adeeraa guriga imanaya intuun adeer iman una ku arag inakeen dibadda meel buu ku geynayaa waxaan ku xagan tagnaa walaalo manaba meel kala garanaya waxa isku dayday inay fahansiiso waxay ku tiri hooyo adeer markii guursanayso waxay ku heshiiyeen 3 caruur inay hayso ee kuma heshiinin inay 4 caruur hayso adiguna dawaan ku soo dhaxdhacday aaban uu diiday inuu biilka ku siiyo marka deena si joogto ma noqonayso meel baan ku soo raadinaya ku geeyo caawa oo iska seexatid marka dad birito Itoobiya ku noqonayso iyo hataa Hargeysa ku joogso
sidii baa dhacdayo inantii walaashay ahayd habeenkii tobankii habeenimo gurigeyga soo kaxaysa waxay ii soo raadisay guri family qof familiga ah oo lii geeyo si aan gurigaas u joogo habeenkii waan xasuustaa ilaa waqti dambe bay nagu qaadatay inaan guri lasoo helo lii geeyo guri baa lii geeyey familiga haddama rabo inaan tiitalka qofka sheego laakiin familiga inantii walaashayd gurigii markay geysay way ka timideen aniga keligii guriga kusoo hadhay dadkii xaafadii lay geeyey baan la hadlay meeshaygii naari ku saatay laakiin waxaan ku uri waan isoo booqday xaye baa lan idhi gurigii qofkii familigayga ahaa habeenkii baan la seexday subaxnimadii waxaa laga rabay inaan guriga ku noqo soo maa waxaan ku urigay guriga hooyo ma garanayo dad igu celin lahaydeen xataa guriga hooyo ma garanayo hooyana meeshuu ka gurta ka waran markaa dan idinka iskala kin joogo gabadhi way soo dhaweysay si fiican bay la hadashay iska joog bay u tiri iska fadhi haye sidii baan gabadhii gurigeedii kaga mid noqday la joogto la joogay gabadhii familigayga ahayd muddo markaan la joogay ilaa 2 bilood si fiican bay la dhaqmi jirtay markii dambe ay aragtay inuun aabaniga soo wardoonin hooyaniga soo wardoonin aabana Itoobiya joogaa wuxuu moodayna hooyo la joogo maadaama Hargeysa joogo hooyana waxay moodaysaa in Itoobiya ku noqday cidina kaamay soo wardoon hooyaniga ma soo wardoonin aabaniga ma soo wardoonin gabadhi way yaabtay waxay ku tiri hooyadaa meeday way joogtay mayna ku soo raadinin waxaan ku hooyo waxaan ku Itoobiya tagay sidaasay moodaysaa baan ku oo aabana Itoobiya joogaay dee waxay moodayeen hooyo la joogo adigu gabadhi markay aragtay inayna hooyaniga soo wardoonin aabaniga soo wardoonin waxay la dhaqantay saan qof loola dhaqmin heer han gaari xataa inaan anigu caafimaad qaban jirin wadooyinka ku dhaco marka awood yaraan miya may dee hadal gumaysi qaylo inaa laygu idhaahdo waxaan sameeye halashaan inaa layla dhaqmo si aan loola dhaqmi karin dee qof bilaadana ilaa gorma noloshaa ku jirtay waxaan ku jiray ilaa intaan kasoo gaadhay 16 sano kadib maxaa xigay door sana gabadhaa la joogay si fiican ilamay dhaqmeen waxbarasho meesha waxbaan baranayaa laakiin waxbarashadan baranaya waxay ahayd waxbarasho aad marka 16 soo gaadhay aad weynaatay caqliysatay si noloshaa isu bedeshay 16 sano markaan soo gaadhay waxaan isu dayay inaan maxay hayday maadaama wax yaro bartay inaan shaqo raadso gabadhin gurigeeda la joogay meel waa ka tegi kari waayo waxbarashada yaran tegayo kusoo noqdo si xun bay la dhaqantay gurigiina waa ka tegi kari waayo magaaladiina ma kala garanay oo meel kaloon tagoon dee waxaan ma garanay waxaan isku dayay gabar baan la xiriiray familigayga ah oo lambarkeeda raadiyey gabadhii baa lambarkeeda la siiyey gabadhii baan la hadlay gabadhii baan u sheegay ku walaal dhibtaasay haysatee kaale gurigayga kaxee gabadhii baa gurigayga kaxaysa gabadhii baa meel geysay guri kale oo iyadu degan iyadu joogtay geysay gurigii baan in muddo 2 bilood joogay waa ka tegay qof kale familigaanu tagay qofkii familigaanu la jooga baa shaqo raadsaday markaan weynaada intaasoo sanadood aabba igama soo wardoonin hooyadiina Hargeysa joogtay igama soo wardoonin
noloshaada nadaa iska wata sidaa doonta meesha ku wadajiya saxa noloshaan wato dadka faamiliga dib walba ay geysanayaan waxay iga daranay in Itoobiya la wixiliyo maadaama hanan xagaasna gabadha abayaan isku fiicnay aabiyo hooyo labaduba ma reer iyo qoysas kale samaysteen ha abreer kale samaystay waxbarashada ilaa halkeed ka gaadhay waxbarashada markii hore iskuuliga ma darinba waxaa laygu tariis madrasada yaryar iyo waxyaaba yarar laakiin markii dambe weynaaday baan iskuulka meel fiican kaga soo biiray marka adaa iskeeyey mise cidda ku aniski adaa iskeeyey ilaa jaamacad waxbarasho ma ka gaadhay hadda jaamacadan dhigta waad dhigataa hadda jaamacadan dhigta waana shaqaysaa waan shaqeeyaa dowladdan u shaqeeyaa laakiin dhibaatada waxa ugu daran waxaa dhacday 4 sanadood baan shaqo raadinayay 4 sano shaqada raadinayay meelaan jooga manaysan sidoo kale manaysan bas oo qof faamiliga baan joogay bas lagama bixinin dar lama iibin jirin waxaan xidhimanaysin xataa markaan shaqada raadinayay maraan wasaaradda arrimaha gudaha shaqo ka raadinay subaxdii lug baan ku iman jiray wasaaradda doorkiina lug baan kaga tegi jiray shaqadaad raadinaysa maxay ahayd aad doonaysa inaad wasaarad ka qabato inaan wasaarad ka shaqeeyo maan rabin ee waxaan rabay shaqaan wax ku bartay inaan la siiyo muhiimadda shaqo u raadinay waxay ahayd inaan noqdo qof taagan maadaama dhibaato badan ku dhex jiro maxaad islaad marka waad qaban karaysa ood wasaarad ka qaban karaysa waxyaaba fara badan baan qaban karayo iskuulka waan dhiganaya waxna waan bartay computer baan bartay computerka markaan baranayna waxay ka caawiyey nin dowladda shaqo usoo doontay computerka isaga ii diray computerka marka hore waxaan u imiday aniguna garanay shaqa dowladeed wax laga qabto kadib waan u sheegay xaaladda waxaan ku dhibtaas haysta sayaasaa jirta waxaan rabaa inaad caawiso isaga igu orada computer soo baro dowladda haddii rabti inaad u shaqayso waa inaad wax garanaysaa kadib sidii baan computerka soo dhigtay luuqadda ingiriishka soo bartay isaga iga caawinay intaasoo dhan inaan magaciisa sheega ma rabee kadib sidii 4 sanadood baan raadinayay shaqo dowladdu keliya haddana shaqo kama raadinayna meelo fara badan meelaha barafadada shirkadaha adu meelo badan ba shaqo ka raadinay ugu dambeyn alxamdulilah hadda waa shaqo tegay waa shaqeeyaa dowladda u shaqeeyaa waxbarashadeedii hooyadii iyo aabay ma oga heerkan waxbarashada ka gaadhay hadda jaamacaddaan dhigtaa dowladda ayaa bixisa ma oga hooyadii waxbarashadeeda heerka taagsan tahay dowladdaad kale u shaqeysa dowladdu way fara badan tahay institutionkaad ka tirsan tahay booskaad ka shaqeysa midna la wadaagi kartaa meesha ka shaqeeya la wadaagi karaa waxaan ka shaqeeyaa wasaaradda warfaafinta inaan ka shaqeeyo oon wasaaradda u shaqo tegana adiga ka mas-uula andara oo adiga ah qofkii iga caawiyey inaan wasaaradda u shaqo tago muddo hadda waxaan jooga 3 sanadooda jaamacaddaan dhigtaa maalintan shaqada bilaabay ayay noloshayda dib soo dhisantay alxamdulilah hadda waxbaan bartaa waan shaqeeyaa noloshaydana dib baan usoo dhisay laakiin waxaa jira weli dhalinyar fara badan oo anigay lamid ah dhibaatooyinkaa soo maray wax yar baan ka hadlay oo ma rabo inaad faamil ahaan taabto dhibaatooyinka waxyaabaha qaarkood igu dhacay dhibaatooyinka maanta ay haysta ugu badan waxaa kamid ah inaana faamiliga hooyadii garanayn oo maanta walaashay hooyadii aabbahay dhaleen hadday iga hor timaado isma salaano
dhibaatadana iskarana laakiin hooyaabay dhibaatada ka timid iyaga caruurta aabba u dhalay ayadaa uu dhalay ama hooyada islaanta kale kadib ay iskurseen iyo kuway hooyo odayga kale u dhashay ma isgaranaysana walaalaatiin hooyo kuwii ninka kale u dhashay isma garanano maan aragba markiisay joogeen laakiin aabba ku xaas kale u dhashay yar baan ka garanaya inta badan baan garanaya hadda intaanan aabbahay la joogin 10 sano ka soo wareegtay 10 sano wixii ka dambeeyay wuxuu dhalay ma garanay hooyadayna caruur haysta laakiin ma garanayo tiradoodan ma garanayo aragtidoodan ma garanayo shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile in ka badan 14,000 oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 Mareykanka ku shubo $0.5 ama $0.5 oo kaliya oo isticmaalaya adeegga idahab